السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضبان إذن سلام يا دمان تيمبا سومالي محمد ميلك صدفها عالمك كجسوا جنتهين ومانتو يوم مالين خميسة صدق هي طبنك بشي سجالات لما كوني سداد يطبنك قفولو بكو قرا تاريخ دميل ساعد الله واحد سفير وصدق هدي بركي قلبنمو إن شاء الله عصر بفضل الوصوهية إن ورانك كلا هاي نوضم بيان وحي دقدقة أيوم بان شعلها مركها إنا ردي الله شهر قريو إلا شلي إلا ضرات إلا مانتا waxaa jiray xasaasiyad kacsan nin taliye ah oo lagu dilay magaalada Abdaal degmada Sheekh ninkaas oo ka soo jeeda habar jeclo waa taliye waa gaashaanle sare taliyaha wararkiisa ayaa soo taraya meydkiisina waxa uu ku jiraa ilaa hadda talaagada magaalada Berbera taliyahaas ayaan hawshiisii maanta idin hayaa dad fara badan oo kulli wadankii ku jooga ayaan khadka idinku xidhayaa oo xogogaal ah iyo qaar laftigeedii magaalada Berbera jooga insha Allah waxa kulli wanaagsan wax marka ay leeyihiin in wax laga qabto yaa dilay taliyahaas sidee baa loo dilay maxayse xukuumaddu ka qabatay ilaa hadda taliyaha waxa markii hore website-da iyo wararka leeno soo geliyay inuu shil gaari ku dhintay taliyahaasi haddaba wararkii oo xaqiiqa oo ilaa iyo imika boqolkiiba 90 dhaqaatiirtii iyo CID-dii Somaliland ba ay u badinayso in la dilay ayaan doonayaa inaan idin la wadaago insha Allah waxaan si doonayaa in aan reer Somaliland guud ahaan ba aan gaarsiiyo waxyaabo fara badan oo caynkaas baa ka dhaca gudaha Somaliland shirqoolo noocaasa oo dadka iyo haldoorka iyo uqaasha iyo ciidamada intaba lagu beegsanayo maxay si dawladdu waxan mayada ka raaliya maxay taliyayaashii hore ee la laayay ee sidaas oo kale lagu dilay maxay ka qabatay dawladdu kulli insha Allah waxaan sugayaa oo aan doonayaa inaan idinku xidho Berbera leenka Berbera idinku xidho saaka iyo kulli warkii ugu dambeysay meydkii marxuumkaas taliyahaas Cabdalle Cabdi Dhimbiil oo ilaa hadda aan la aasin jifidii uu ka soo jeedayna ay taagan tahay ilaa wixii dilay taliyahan la keeno inaan la aasaynin iyo xaaladda Berbera oo aad u kacsan magaalada Burco oo ay ka baxeen uqaashi joogtay iyo Hargeysa iyo Berbera oo imika loo soo dirayo nin aanu ka shakisanahay inuu dilalkanba ka dambeeyo oo ah taliye ku xigeenka ciidamada qaranka Somaliland aadan fooxle ninka fooxle la yiraahdo oo aad looga shakisan yahay ma sidaasay ahaanayaan taliyayaashii Somaliland in qaarna la laayay qaarna ay baxsadaan oo ay Puntland u galaan maxayse xukuumaddan Muuse ka qabanaysaa arrimaha noocaasa waxyaabahaas inaynu isweydiino insha Allah dhammaantiinba soo dhawaada waxaynu website-da ku arkaynay maalmahanba maalintii Isniintii in la yidhi taliye saldhigga Sheekh ama magaalada Abdaal la yidhaahdo oo Mandheera iyo Sheekh u dhaxaysa inuu shil kula dhacay shil gaari ku galay taliyihii saldhiggu laakiinse qisadii oo dhaba oo isku wada dhan ayaynu maanta halkan ka helaynaa waxaynu insha Allah waraysan doonaa marxuumka xaaskiisii oo aynu khadka telefoonka iyadana ku xidhan doonaa wixii ay ka og tahay si yaro gaaban anigu aan kula hadlay telefoon oo ay ii sheegtay in niman ka imika la gaari baa la dhacay ama nimanka imika taliyaha gacantiisa ku baxay inay ka soo ergoodeen ama ay ku taamayeen
ay ku hanjabayeen in taliyahan ay dilayaan oo ay naagta u sheegeen uu marxuumku ka dhintay waxyaabo fara badan baa isa soo taraya taliyahaas 90% waxaa caddaatay inuu ku baxay gacanta ciise muuse danwadaagta nimanka la yidhahdo reer cadaawe waxaa kaloo iminka xanuunkiisii soo baxayaa taliyihii hore ee lagu dilay magaalada berbera ee casayr oo ilaa iyo hadda dowladdan iyo tii hore toonna aanay waxba ka qabanin raggii loo xidhxidhayna ilaa iyo hadda ay suuqa joogaan oo la sii daayeyba cadaaladda intaa leegi tolomatii taliya caari ka cabanayeyba markaanu la yaabannahay annaga oo runtii ah muwaadiniin somalilander ah waddankayga iyo qarannimadayada iyo dhulkayga aaminsan haddana waxyaabaha qaar ayay noqonaysaa inaynaan ka indhaqarsanin aynu runta isu sheegno caalamkana u sheegno wax ishuwanaanaya iyo wax la kala qarsanayaa ma jiraya haddii dowladii jirto oo dowladdu ay ku dhisan tahay cadaalad oo ay dadka dhex u tahay waxyaabaha dhacaya ee ka dhacaya siba intii iminka muuse qabsaday in ay dowladdu wax muuqda ka qabato oo ay yacni wax aana ignoor garaynin taliyahaasi la dilay isniintii ee magaalada shiikh lagu dilay madaxweyne wuu tacsiyadeeyey laakiin se inuu tacsiyadeeye maaha taliyihiiba weli wuxuu ku jiraa tallaagadda maydkiisiina lama aasin tacsiyadu waxay timaadaa marka lagu heshiiyo ama la caddeeyo sidee buu ku baxay taliyahan sidee buu ku dhintay marka ay timaado ayaa ahayd madaxweynuhu inuu tacsiyadeeyo laakiinse maanta waxaan idiin sheegayaa dhammaantiinba magaalada berbera iyo burco iyo hargeysa meel kastaba waxaa ka taagan xasaasiyad runta markaan idiin sheego fidno lama huriyo laakiinse fidnada kuwa shidaya ayaan u sheegaynaa halka kala hadlaynaa kuwa shirqoolka ku laynaya haldoorka reeraha ee la garanayo ee aan magacyadooda halkan ka wada sheegi doono iyo qabiiladooda ayaa dowladdu ay tahay inaanay daawanin maanta waxaan idiin sheegayaa taliyahaas maydkiisu tallaagadda ku jiro in aan la aasaynin ilaa la helo wixii dilay 2 nin baa xidhxidhan baa la leeyahay 8 ninna taliyaha inay ku dileen waa la sheegay sida ay sheekadu ku dhacdayna oo dad xogagaale ay soo wariyeen ama laga hayo ama laga soo duubay ama ay soo caddeeyeen in taliyihii subaxnimadii lala soo hadlay oo la yidhi magaalo yaroo halkana tuulo halkana 2 nin isku haystaan nin baa geel dhacay lacag baa la isku haystaa taliyaha gurigiisaa loogu yimi gaari nooha ah niman wata ayaa u yimi oo 8 nin oo isku reere baa u yimi oo qaarna shacab yihiin qaarna boolis yihiin oo 8 oo ciise muuse yihiin taliyaha gaariga meel dhexdaa baa la joojiyey oo mandheera iyo u dhaxaysa abdaal taliyaha waa la dilay faash weliba baangaa lala dhacay sida uu dhakhtarku caddeeyey caqli baynu leenahay ilaahay wuxuu caqligeenna inoo siiyey inaynu ku kala garanno inaynu wax ku kala garanno qofka gaarigu la dhacay iyo qofka ku dhinta gacanta lagu dilo waa la kala garanayaa gaariga laftigiisa waa la garanayaa hadduu dhaco iyo haddii aanu dhicin gaarigu muu dhicin waa kow muraayadaha dhagax baa lagala dhacay gaariga waa sida CID oo caddaysay nimanka booliska ah kantaroolka abdaal joogaa waxa ay sheegeen inaan gaari halkan ku dhicin waxa ay sheegtay marxuumka gabadhiisu in nimankaas habeenkii ka horreeyay ay guriga yimaadeen oo ay gabadha isku reer yihiin ceebta intaa ka sii daran taliyahan ay gacantooda ku dilayaan waa ninkii inanta ka qabay ee inanlayaalka ahaa waa nin habar jecla ah oo axmed faaraxa oo reer raaga ah waxaanu qaba gabadh ciise muuse oo 6 carruura u leh maanta dowladda muuse way kala caddaanaysaa ama dadka waxa ay way isu bannaynaysaa reeraha laysu dilayaa oo reeraha laysu waarsanayaa
ama dadka way kala qabanaysaa runtaan idiin sheegayaa waxa la kala qarsanayaa ma jiraan taliyahaasna haddii taliyihii horeba ay dowladdu waxba ka qaban weyday taliyahan waa loo aarayaa haddii la keeni waayo wixii dilay oo lala aasi waayo mag iyo wax la kala qaadanayaa ma jiraan maadaama sheekadu ay noqoto shirqool oo si shirqoola qofka lagu dilo si foolxun qofka loo dilo magi ma socoto wax mag la yidhaahdaa ma socoto godobteeduna ma hadho markaa waxa weeye kolley waxaan doonayaa inaan layn idinku xidho dad iminka jooga berbera oo inooga warrami doona marka dadku soo yimaadaan ee asxaabta iyo shirarka ka soo baxaan iyo shaqooyinka biliis waxaan idinku codsanayaa ha iga soo wicina messengerka ama facebooka number kalaan idin siinaya numberkaasaa iga soo wacaysaan qofkii u baahan ama viberka ama whatsappka laakiin waxaan doonayaa bal horta inaynu isu nimaadno waxaynu doonaynaa taliyahaasi marxuumkaasi wuxuu ku jiraa talaagadda 3 casho waxaana loo aasilayahay in la helo wixii marxuumkan dilay 8 nin ee dilay in la helo ayaa loo aasilayahay xukuumaduna way daawanaysaa ilaa shalay laakiin maanta waxa imanaya ninkii aanu kaba shakisanayn inuu dilalkan ka dambeeyo dilalkanina way iska soo daba noqdeen gobolkan saaxil reer baa ku amarku taagleeya reer baa reeraha kale ugu hanjaba ama ku laaya dowladda Muuse Biixina way ku taageersan tahay waa sida anigu aan aaminsanahay maanta waxaynu kala saxaxanaynaa dowladdu inay dadka isku fasaxdo may dowladdu inay dadka isku fasaxdo iyo in ay kala qabato maanta Muuse Biixi maanta kala ogaanaynaa waxa weeye taliyihii ciidamada ee saldhigga haystay ee iyaga u adeegayay ee iyaga kala celinayay ee inanta ka qabay in maanta faash lala dhaco de Soomaaliland taasna waynu sugayno waynu u fadhinay taasna waynu u fadhinay in ciidamada qarankeena ee inoo shaqaynaya ee amnigeena ilaalinaya ee inagayna ilaalinaya ee cadawga inaga hortaagan inaynu shirqoolno maalin walba 8 intaan isku kaxaysano Ciise Muuse aynu ku dilo berbera iyo shiikh agtooda hadda way joogaan Ciise Muuse ها تلفوننا iga soo dhaxgalay iga raali ahaada waan oranayaa maanta ma maqli jirteen hebel afku furtay cadaalad darrada Soomaaliland lagaga cabanayo way sii kordhaysaa waxa weeye annagoo cadaalad darro tirsanayna oo Ilaahay og yahay oo haddana qarannimada iyo wadaninimada iyo Soomaalilandnimada xeerinayna ayaa maalin walba waxa dhacaya wax dawladda Muuse Biixi ka dambayso maalin walba way dhacaysaa way sii socotaa waa dhidarkii xabaalaqod qurun ma uga dhaadhacay laakiinse waxa aan maanta iyo wiigagan iyo inta meydkaasi talaagadda ku jiraba aan ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa dhibaatada maanta Soomaaliland taala way ka tagtay maanta kililkii shanaad way soo dhaaftay Soomaali weyn Puntland iyo Tukaraq way soo dhaaftay waxay ku wareegaysaaba gabigeeduba Soomaaliland gudaheeda iyo dhulkii isaaqdagi jirunba ku wareegaysaa Muuse Biixi ama amarro adag iyo go'aamada adag buu ka qaadanaya waxaan ka dhacaya Soomaaliland oo wuxuu noqonayaa madaxweyne cadaalad ku fadhiya meesha oo dadka u dhaxa ama wuxuu noqonayaa madaxweyne reereed waa runta marka la isu sheego annagu waxaanu la yaabanayn tolkayaanu la yaabanayn garxajis baanu la yaabanayn oo qaylinaya garxajis soo qaylinaya oo 20 sano qaylinayaan la yaabanayn markaasaanu lahayn war bal horta wadanku yaanu inaga burburin maatadu yaana inaga qaxin maatadu yaana inaga baabiin aynu wadanka ilaashano ayaanu taagnay kowde wallahi inaan ka daynaynin laakiinse maanta Muuse Biixi inuu taasiideeyo taliyaha meydkiisii wili talaagadda ku jiro oo aanu u soo xidhin raggii dilay ee shirqoolay wax la qaadan karo maaha isaguna hadduu doonayo ha dhageysto ha soo galo Facebooka maanta wax la qarsanayaa ma jirto Soomaaliland waxa weeye wax fara badan ayaanu midnimada iyo qarannimada iyo Soomaalilandnimada ilaalinay laakiinse maanta afkaan furanaya anuguna ma maqli jirteen hebel baa afka furtay
hebel baafka furtay Soomaaliland maqli jirin weliba waxaan sugayaa nambarra un baan sugayaa nambarradaas markay ii soo dhammaadaan maanta fasax baan ahay arrinka awgiis baan fasax u qaatay muna baashay anugu waxaan ka hadlayaa wax jira war taliyayaashan lagu laynayo maalin walba gobolkan saaxil maxaa ay ka damacsan tahay maxay dawladdu ka damacsan tahay ma iyadaa ka dambaysa adeer ciise muuse taliyayaal waa leeyahay weer kastana waa joogaan burcay joogaan sanaag bay joogaan sool bay joogaan waxa weeye maanta waxa aan halkan ka caddaynayaa inaan wax dambe laysula hadhaynin taliyaha meydkiisu uu talaagada ku jiro ayay Soomaaliland ku kala baxaysaa haddii ay xukuumaddu noqoto sidii loogu talagalay in ay wax uga qabatana waxay noqonaysaa xukuumaddii loo baahnaa haddii ay daawatona oo ay TV-ga ka tacsiyadeeyaanna dee wax soconaya ma aha xukuumadda dhaliila fara badan ayaanu ka difaacaynay laakiinse maalinta ka dambaysa godunbay kusii dhacaysaa waayo maanta waxa weeye maalin ciidankaaga askarta ku ilaalinaysa maalin maanta la dilo maaha maalin maanta ciidamadaada aad ugaarsato maaha haddii dirayskii uu sitay iyo calankii uu xidhnaa lagu shirqoolay haddii reernimo loo shirqoolay haddii soomaalinimada iyo islaamnimo laga tegey waxay noqonaysaa markaa in annaguna wixii aanu doonno aanu samayno haddii ay noqoto af iyo adin iyo adduun waxaanu karaynaba laakiinse in 3 casho waxaa la sugayey xukuumadda muuse biixi in ay dadkaas soo qabqabataa la sugayey xukuumadda muuse biixi wax badan baa indhaha aanu isku qabannay wax badan baanu lahayn war ka daaya qarannimada dalka muuse biixi birituu tegayaaye aynu waddankeena ilaashanno laakiinse muuse biixi muxuu ka tegayaaba xitaa hadduu tegaya birito wuxuu ka tegayaa meel baabaaday iyo meel laysku dilay buu ka tegayaa haddii uu sidan ku sii wado waa maalintii u horreysay waxaan horaan idinku sheego waxaan idinku iri qofkii ii baahanow nambar kalaan ku siinaya nambarkaasaad iga soo wacaysaa laakiinse kan hawl baan ka wadaa ha iga soo wicina muusow inaadeer wax soconaya maaha tolkeen ayaa 20 sano qaylinayay oo wax walba lagu sameeyey in maanta garxajis aynu nidhaahno war garxajisow ka daaya haddana xukuumaddii ay godun ku sii dhacdo wax la daawan kara maaha anigu maanta waxaan taaganahayba arrinkaas meydkaas iyo marxuumkaa ku jira talaagadda nacamtu billahi inaan la aasaynin la aasi maayo ilaa wixii dilay ee shirqoole lasoo wada xidhxidho weliba tegi mayse waxay tegaysaa ilayn taliyo horaa halkan meeshan maray taliyihii horaa la ogaa sidii yacni loogu guntaday sidii gobonnimada looga raacay sidii habar jeclo ka yeeshay laakiinse haddii ay noqoto in taliyayaasha habar jeclo iyo haldoorka habar jeclo qaarna TV-ga laga caayo ama burush xaarla la marmariyo iga soo garaac ninkii doonayo laakiin xagga kale iga soo garaacin عبد العزيز السلام عليكم. وارتلي برنامجك واكو مغليا انا بتلياش هي تاتابتي معاتنا درو انا بتلياش هي تاتابتي سو بروجرام كلمات سعون adigoo dee waxaan kursi wanaagsan madaxweynaha ula hadlayaan soo gaaray oo la si wanaagsan dee dadkii taliyaha dilaha la soo qabto sidii uun baa imika loola hadlayaa madaxweynaha iyo shacabka reer Somaliland ba صح taliye ay saldhigga booliska magaalada Abdaal la yiraahdo ayaa si fool xun loogu dilay gartay dabadeedna waxa la soo geliyay website-da gaara la dhacay inta gaari bar hore dhacay la soo sawiray صح meydkiisina wuxuu yaalaa weli talaagadu ku jira waan gartay boqolkiiba 90 CID iyo dhakhaatiirtu waxay sheegeen
in marxuumkan aan gaadhi la dhicin waan gartay intaa markii ay sheegeen baa dareewalkii iyo nin baa la soo xidhay laba nin baa la soo xidhay sax lixdii kale lama hayo sax taliyahaasna jifidii uu ka soo jeeday sax waxay tiri raggiioo nololo aasa mooyaane la aasi maayo gartay muuse biixina waa madaxweynihii qaranka sax ilaa iyo hadda maantaaba la sheegaya in mala taliya ku-xigeenkii qaranku uu yimi berbera xaaladdu markaa cirka isku shareeraysaa waa taliyihii labaad ee markaa halkaa lagu dilo markaa bal sababta keentay taliyaha ku difaacaya ee amnigaaga ilaalinaya ee nabadaada ilaalinaya xoolahaaga ilaalinaya maalin walba inaad berbere iyo gobolka saaxil ku disho ninka dambe waa ayam kala dilay ninkan dambena waa nin habar jeclaa iyo ka yaa waa nin reer raagaa abdaal baa lagu dilay abdaal baa lagu dilay dee waa 8 nin oo ciise muuse abaa intay yidhaahdeen meel halkanaa la isku haystaa oo boolis iyo shacab isugu jira intay yidhaahdeen meel halkanaa geel la kala dhacay ayay dabeedna meel dhexe istaageen oo ninkii faash la dhaceen dee waa kolley taliyahan cusub wuxuu ku daba jiraa dee ninkii hore sida nacasnimada laga yeelay soo maa dee mid nacasnimadu may jiraysaa jiri mayso nacasnimo dambe haddii aad weligaaba adigu is tiraahdo qarannimada somaliland ha la ilaaliyo haddaad tiraahdo oo lagula ilaalin waayo oo wax walba lagugu sameeyo aad ka tagto dee socon mayso aan u malaynayaa adiga maxay kula tahay wallahi horta waxay la tahay inaad dadka madaxtinimada haya ee birmageydada ah ee qaranka u shaqaynaya in waxa weeye la xanuujiyo ila shacabka dhibaata way kaga imanaysaa shacabkii hub bay haystaan mindiyay haystaan guri walba qori baa yaalla laakiin inay xukuumaddu arrinkaa meel adag iska taagto ayaa fiicnaa taliyo ka horreeya baa jiray oo dee ilaa iyo 2019 maca soo jiray anigu waxaan ku ogahay kii qurdhugud labadii taliya qurdhugud lagu dilay ka dilay baa inaad arkay buu ahaa labada taliyana laba ninoo midna gabile u dhashay buu ahaa midna uu dhashay boorame faamiligii baa lala xidhiidhay ninkii wuu baxsaday marka xukuumadduna arrinkaa way ka gashay ninkaasina intuu buuhood la galay buu dee ilaa Itoobiya xitaa Nairobi buu halkaa ka galay haddana taliyayaasha faamiligoodii iyo ninkaa wax dilka geystay faamiligoodii baa wada hadlay si qurux badan baa magti loo wada kala qaatay tii ku xigtayna wuxuu ahaa taliya casayr iyadoo looga steednin inay meel u gashay oo si xun ay u dileen ayaa haddana tusaale waxaa looga dhigay tii qurrugud oo kale la yidhi annaguba rag baana beri idiin sii daynee dee ninkana hala soo daayiyo tan kalena waa taymka soo korodhay marka qofka askariga ah waa nin qarannimada u go'ay oo reernimo maaha laakiin sababta lagu dilay hadday xukuumadda loo dilayna dee wayna xukuumadda arrinkeeda inaad waxa weeye wax ka qabataa haddii reernimo loo dilayna dee cid buu ka dhasho ila askarigu waxa weeye geed kama bixine reer buu dee ku aroorayaa dee dadkii laga dilay wayna arrinka ka howlgalaan ta waxaan samaynaysana waxaa igu maqaalaa waxa weeye gobolkan saaxil annagaa lehe maxaa nin habar jeclay uga noqonayaa taliye ayuunbaa dee loo laynaya inaad anigu habar jeclaanahay haddaan sugaa sheego solomadow baan ahay waad ogay deked la dhaho ma maqashay meesha la dhaho ceel gardi ceel gardiimka waanu dhisanaa dekeda waanu balaarinaynaa ber dhexdaasna niman baa soo weeraray xaafadaasa deegaankana waa la wada leeyahay beriga beesha saaxil ma jirta waxaa jirta beesha galbeedka saaxil baa jirta ciise muuse ama habarawal galbeedka saaxil ba degaan ma garatay bariga saaxil habar jeclaa iska leh maayirkana waxa weeye cod buu kusoo baxaayo 7 xildhibaan baa berigii usoo baxay iyaga habar jeclana 5 baa usoo baxay waa gartay sidaasay maayirka ay ku qaateen maayir ku-xigeenkiisa oo marka habar jecla xaq dadda uma lahayn ya dee nin habar yeelisoo midh la soo baxay bay yidhahdeen aynu siino waa gartay cadaaladdu halkaas reerkaa ka joogtaa marka saaxil waa bari iyo galbeed bariga saaxil xitaa magaalada laftirkeeda xaafado dhan bay habar jecla iska taallaa 2 qof ka mid tahayo
burcashii ka mid tahay oo boodheri ay tan xaggan batalaale xigta ka mid tahay oo xagal bay degmo ah oo laaskeel baa degmo ah oo waxaan ku yidhi ilaa iyo adigu konton tuulo oo bariga iyaga waxaan ku yidhi waqooyigaba magaalada bacbar jeclaa taalla markaa qof kasta wuxuu doonaha iska yidhaahdo afar oday marba berberayntay ina ciddi lacag siiyo ha yidhaahdeen kan annagaa leh dadku ways yaqaanaa reeruhu way wada dhasheen arrintaa dilkana reer raage ama nimanka axmed faarax dee waa nimanka bixiyeyba waxaan ku yidhi meydkaba nimanka lagama aaso kowdhe marka waa reer kululoo arrinkaa ciddii dashay dee hawl ba halkaa kasoo korodhay hawl weyn ba halkaa kasoo korodhay saaxiib noloshuna ilaahayna qur-aan ku sheegayo dee dilku in qofkii wax dilaba maaragtay loo dilo ayaa fiicanba marka aniyo somaliland imika way xanuunsanaysaa bukaan weyn baa soo kordhay reeraad taa haya wanaaggii iyo qarannimadii iyo walaaltinimadii iyo wada noolaashihii waxaan ku yidhi waxa lamadayn baashaba farihi ay ka baxday sababta anigu waan gara waayey ma ninkan muuse biixi ayaa waxaan ku yidhi dee aqoon aan lahayn oo dalkii ku fashilmay mise dadkiiba xanuunkii kusoo kordhay oo ninkan baa la diidan yahay beeshu ka dhashay marka anigu waa su-aalahan isweydiinayo qof somaliland maanta jooga oo ama dibad jooga ama guda jooga laba qof oo aragti maanta ka siman ma jiraan marka aniyahow bahashu awalba markii horeba dee wanaag iyo tacab rag bay ku dhisnayde haddii bahashu faraha ay kasii baxayso dee si wanaagsan somaliland ha loo sii bireeyo magacaygaas bay tegaysaa waad baasan tahay inaadeer bal waxaan soo qabanay nin xogegaal oo inooga warrami doona arrinku siduu u dhacay war jamaalo ma joogtaa jamaal iga jar waayo inaadeer waa maasanta taliya maanta waxaynu isugu nimi waxa weeye inaynu bal wax iska weydiino taliyahaas lagu dilay isniintii maxay ku dileen sidee u dileen yaase ka dambeeyey tolow dadka qaar waxaabay leeyihiin arrinkan waa arrin ay ka siman yihiin reer ahaanba marka 8 nin taliyihii hore casayr allaha u naxariistee 8 nin bay ku dileen kana 8 bay ku dileen 8dii hore ninna lagama taabanoo gobonnima laga yeelay laakiin maanta waxaan umaleeya gobonnimo way dhimanaysaayo haddii xukuumaddu ay sidaa u daawato dee waxay noqonaysaa uun in la iswada dilo oo meel kasta oo dee ciise muuse joogaba sidaa ay wax u ugaarsanayaan loo ugaarsado ayuun bay tegaysaa balse xukuumadda 3 cashaa la eegayey maxay qabatay saaka waxaa la lahaa 2 nin bay soo xidheen jifidii uu taliyuu ka soo jeedayna maydkaas la aasi maayo bay yidhaahdeen ilaa wixii dilay la raaciyo taliyadii horena waa la tirsanayaa markaa maanta xaaladdu cirkaasay maraysaa bal ninkaa odaygaa baa soo qabanaya insha allah cabdicasiis walaal waan kusoo qabanayaa wax yar isug haynoo warrame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياسين وما مغلسة ها جمال وكم مغلينا محاد ورن نقول أنت أرن كاس برنامج سلامات سعود سوانا أقسم بان أولى السعودية برنامج كهذه هذا نوضق مع الصنطين هذا رجع لي هذا جي كسر قبل ياش دمان تود بويد السلامية وان كاغادنا أن أرنتها سيد حقوقان كوي هاي وقت كان حاضر كاو حنو عدينا ناين أرنتها سني من كا أي كعديهين فاكستيش كيف راح بنا إلا سمية وح عدانا meeshii ay yidhaahdeen baabuur baa ku dhacay haba yaraatee inaan laga helin haba yaraatee wax raada oo baabuur ugu dhacay meeshaas waxaa la helay goobta iyada ah baabuur ay dhagax ku miiseen oo muraayadaha ay digada ka dhigeen dhagxaantiina gaadhiga dhexdiisa laga helay laakiin falsafaday adeegsadeen waxa weeye ninkaa dil bay ku adeegsadeen faash bayna madaxa kaga dhufteen waana caddaan arrintaasi waa muran madoonto muddo badanna way ku taamayeen baa la yiri ninka sarkaalka ah ee haystay saldhiga booliiska ee Sheekh Abdaal arrintaasna waa wax cad laakiin ayaan daradeeda waxa mudan maanta annagoo arrintayadii baaranina oo u tafaxaydina inaanu arrintayadii baarano cidna aanan godob ka gelin dulmina aanan ku socon
markii isku dayay wasiirka arrimaha guduhu uu la soo hadlay odayaashii uu leeyahay aasta meydka oo u aasay dhicitaan baabuur waa ayaan daro laakiin waxaan uga digayaa isaga iyo ficiisaba inay arrintaa marnaba aanay ku degdegin haddii kale waxaan u malanayaa ayatiinkeeda iyo qoomamadeeda dambe ay heli doonaan ayaan taa waa digniin aan dirayo cadsidaahayn laakiin arrintaasi dibadda u soo baxday codka kor yara qaad Jamaalow codka waa lagu yaryahay may maqlisaa imika may maqli yaasiinow ninkii hore ka cod dheeraay ha inaad may maqlisaa waa lagu maqlay laakiin uu gaaban yahay walaal waayo kor baan u qaadayaaye arrintaa haddaad iga waraysatay xogogaalnimadeeda arrintaa waxaan kuu sheegay inay caddaan tahay oo aan kaleer tahay inay nimankaasi dilkaa bareerkaa ninkaa u geysteen ee shirqoolka ah marxuumka allah yarxam arraaximiin cabdalle markaa meeshii baabuurku ay yidhaaheen wuu ku dhacay waa la tegey saaka 30 nin baana tegey si kastaba waa loo baaray haba yaraatee lama helin meel baabuur ku dhacay markaa maadaama arrintu sidaa tahay waxaa la helay dhagxaantii ay baabuurka ku jajabiyeen ee dhinacyada muraayadaha ay kaga jabiyeen muraayada hore iyo muraayadii dhinacuu fadhiyay ay kaga jajabiyeen waxaana caddaana ninkaa inay faash madaxa kaga dhufteen arrintaasina sidaa ku dhacday laakiin ay yidhaaheen dambe basa dhagxaantii ay muraayada ku jajabinayeen qaarkood waa la helay baabuurkaasina baabuur dhacay maaha marka arrintaasi waa caddaan laakiin waxa ayaan daran leh wasiirka arrimaha guduhu oo la soo hadlay odayaashii reerka oo yidhi u aastan ninkaa in uu shil baabuur ku dhintay waa ayaan daradeeda leedahay waxaanu uga diginaa wasiirka arrimaha gudaha iyo kuwa la faydanba inay arrintaa iyadaa ay ku dhex milmaan iyaga oo samaynaya humbaalayn ama dhuumasho dhabarku muuqdo haddii kale qoomamadeeda iyo maxsuulkeeda way heli doonaan waanu uga diginaa si toosaanu uga diginaa arrintaa iyada ah waad maqasheen baan u malanaya dadka dad xukuumaddu miyay soo xidhxidhay cid sida adigoo ogaalka ah sida xogogaalkay ah nin bay markii hore xidhay markii dambana nin bay ka daba keeneen laakiin waxaasi wax cuntabaya ma aha 8 nin bay ninkan ku dileen waa caddaan 8 ninna waa la garanayaa sida arrimuhu u dhaceen oo dhanna waa la hayaa maxsuulkeedii maxaad u malaysaa Jamaalow markaa inay ninka taliyaha maxaa lagu dilay aad u malaynaysaa yaase ka dambeeyey talow taliyaha waxaa ka dambeeyey dilkeedu wuxuu ahaa dil qorshaysan oo runtii la xidhiidha nimankan midhaysiga saraakiisha habar jeclo ka soo bilow arrintii hantaaqada weyn keentay korneyl casayr markaa way isku dayayaan inay saraakiisha habar jeclo wixii bedel loogu keeno aagooda oo habaya sidii ay shirqool ugu heli karaan ay ku dilaan markaa arrintani waa arrinta xukuumadda ka dambaysay waa beelaysan tahay beesha subeeriya ayaa mas-uuliyadda intaa le qaadisa laakiin waxaa ballana inay qoomamayn doonaan maxaa idinku dabacsan tihiin markaa waxaanu dabacsannahay waa wax runtii taa waa waxaan shaki ku jirin in aanu ficilkeeda si togan oo waliba ay qoomamayn doonaan aanu uga jawaabno ayaanu arrintaa iyadaa ku talagelkeedu weeye dadku way yaqaanaa buu degal baanu wadayaal waanu isnaqaanaa nimanka odayaasha ah marka bal ninka deecaana ka daadanayaan waan arki doonaa wallaahi baan lagu leedin waa iga dhaaray wallaan loogu leedin ilaa iyo hadda taliyihii ciidamada qaranka ma yimi berbera ma soo gaadhay oo arrinkan ka hawlgalay wax allaale wax soo gaadhay ma jiraan wax allaale wax soo gaadhay ma jiraan arrintan waa arrin ay doonayaan inay sidii hore ugu socoto barta miidiyaha iyo mareegahana iyagaa gashaday shil baabuur buu ninkana ku dhintay taasina ayaan daradeeday leedahay marka arrimahaas oo dhani waa arrimaha ay wax ku dambabasayaan tii horena waxay isleeyihiin waydii suuro gasho waydii meel martay ma socoto wax soconayana maaha Jamaalow waxa maraan gabadhii marxuumka la hadlay waxay ii sheegtay in nimankaasi ay hanjabeen oo ay yiraahdeen ninkan waanu tooganaynaa niman seediyadii iyo Ciise Muuse ay ku yiraahdeen idinkaanu idinkaga xishoonaa ninkan maraan madaxa ka toogan lahayn warkaa miyaa ka haysa adigu warkaa waxaa la xaqiijinayaa gabadhii markii la waraystay ninku markii lalahaa howlgalbaa loo baxayaa gabadhu dareen bay qaaday horena hanjabadahaasi way u dhaceen oo waa wax caadi waa wax la ogaa oo caana gabadhu markaa iyadu way ku weysiisay waxay tiri waa raacin nimanka waa raacin isaguna wuxuu yidhi hawl qaran baan u baxayaa oo dee hawlihii lay igmaday hawl kamida baan u baxayaa waana waajibaad
marka nimankii bay aragtay ishay wada saartay raggii inay ahaayeen marka taasi inaadeer waa maragma doonto taasi waa waxaan marnaba masuug la gelin karin haba yaraatee waa caddaan waa arrin badheedh ah waa dil qorshaysan oo waxashnimo ah oo badheedh ah laakiin way helayaan waliba aan kugu dare ninka maxaa lagu dilay baad u malaynaysaa sidee baa loo dilay ninkan runtii arrintani arrin qorshaysan oo muddo dheer socotay bay ahayd sidii beddelka loogu keenay meesha hawlihii uu ka qabtay ninkan waxaa nin askariya oo askari de booliisa oo sarkaala oo si daacada u shaqaysanaya haba yaraatee isagu wax dulmiya ama la odhan karo ama ama wax isaga lagu taargad gareeyo oo uu sameeyey ma aysan jirin ninkaasi nin caadi u shaqaysanayay buu ahaa laakiin arrintani waxay la xidhiidhaa uun arrimahan qabaa'iliga ayay la xidhiidhaa oo reerkani ugaarsiga ayay wadaan oo waa wax la ogyahay waa caddaan maxaa ninka marasaas baa lagu furay mafaash baa lala dhacay matoore baa lala dhacay maxaa dhakhtarku caddeeye ku yaala dhimashadiisa ninkan faash baa madaxa lagaga dhuftay laba nabar oo kale oo midiya loo maleynayana waa laga helay naaska hoostiisa laakiin faashku waa lagu kala badhay madaxa lagu kala badhay xagga dambe inta la iskala soo taagay ayaa ninkaa faash madaxa lagaga badhay marka arrintaasi waa arrin marka waxa la leeyahay isaga iyo dareewalku xagga hore ay saaraayeen 5 nin oo kale 6 nin oo kale xagga dambe ku jireen gaarigu waa nooha gaarigo oo soconaya ama la istaajiyay ayaa ninka oo xagga hore saaran faashka madaxa lagaga kala badhay ninkan si beegsi wanaagsana oo hubaala ayaa xagga dambe faashka lagaga dhuftay waxaana dilay nimankii dee nimanku way ku wada socdeene waxaa nabar qaadka lahaa nimankii 6dii xagga dambe ku jiray ayaa midifaashkan isula taagay oo madaxa kaga lugahana waxbuu ka qabaabaa laleeyahay lugaha qaar baa go'an iyaga lugaha maxaa kaga dhacaad malaysa maxaa lagaga dhuftay lugaha way ku dambabasayaan oo ninkan markii ay leeyihiin baabuurkaa dhacay bay ku leeyihiin luguhu gooyeen laakiin lugahana faash bay kaga dhufteen lugaha waa sidaa weeye waa arrintu way wada socotaa way dejiyeen gaarigana way saareen marka haba yaraatee wax caddayna lama helin meel baabuur ku dhacay wararkii ugu dambeeyey ee aad ka heshay berbera wax waanwaani miyay socotaayo odayaashii iyo dowladdii iyo jifidii taliyaha marxuumka iyo miyaa wax waanwaani u socotaa mise halkii baa la kala taagan yahay shalaytoo la kala taagnaa jifidii marxuumku way joogaan aduu guddi ilaa 350 ka kooban ayaa jooga meesha oo isku jira jifidii iyo adigu tolka guud especially waliba Axmed Faarax laakiin dawladdu way ka cagajiidaysaa arrinta iyadana way ka cagajiidaysaa waxay isleedahay si baabal khiyaama wax ku dajiya waana la arkaa taasina waa dhuumasho dhabarku muuqdo si wanaagsan baa loo arkaa wax alaale wax laga weydiinayaana ma jirto arrintaasina waxaan jeclahay ilaa galabnimada ay soo gabagabowdo si toosana aynu uga maqli doono baraha warbaahinta especially waliba meediyaha mareegaha waxaan website-ada lagu soo qoray Jamaalow ee la leeyahay gaari baa la dhacayna yaa ka dambeeyay website-ada soo geliyay ma dawladda taadamira loo sheeg baanu leenahay waa dawladda soo gelisay oo de habnaan qabiil bay u soo gelisay oo waxay mareegaha laga soo xigtay waxay mareegahan barahan iyaga u adeega especially gabilay tan la yiraahdo Mandela News saaxil kuwaasi markii hore soo geliyeen marka adigu si war maqabtaa bay mareegaha kalena uga qaateen warka laakiin baraha lagu soo tuuray markii hore waa baraha waa mareegaha iyagu ay leeyihiin bal waad mahadsantahay Jamaal niman kale iyaguna warar haya ama xogagaala ayaa ku jira khadka waan soo qabanayaa walaalo hoosta iyo yara fadhiiso wixii waraad soo ururisana gacanta soo taago aad baan ku salaamay aad baan kugu mahad celinayaa kaasina wuxuu ahaa Jamaal Yare oo inooga soo warramayay sidii wax u dhaceen iyo magaalada Berbera oo ku sugan Berbera ku sugan balse imikana waxaan la hadnaa ninkan waraysanayna isagana suga waa nasiib darro Somaliland inaynu taliyayaashii amnigeenna sugayay ee cadowgaynaga ilaalinayay inaynu ugaarsanno reer u ugaarsanno taliya Casayr ayaa 2017kii maantana sanadkana waxay maraysaa taliye Cabdalle Cabdi Dhimbil oo ahaa taliyii
degmada Sheekh oo si fool xun halkaa loogu dilay oo la leeyahay faash baa madaxa lagala dhacay lugahana waa laga gooyey markii dambana gaariga ayaa lagu riday isagoo meyda gaariga bohol baa laga tuuray dhagaxna waa lala dhacay oo muraayadaha lagaga jijibiyey CID iyo baaritaankii waxay soo saareen 80% inaanu gaarigani dhicin ninkana aanu gaari la dhicin nabarra ku dhaceen maxay markaa xukuumaddu arrinkaa iyadu maxay ka dabacsan tahay haddaba ma inay xukuumaddu reeraha isku fasaxdo ilan dhagax kama dhalan taliyayaashan iyo taliyayaashan la laynaya dhagaxyo kama dhalan imika haddaan idii soo qabto taliyayaashii hore ayaa imika shaki ku jira waxa 2016kii ku dhintay baran eeriyadeeda mujaahidkii Machabe oo isaguna gaashaanle sare ahaa waxa la yidhi Puntland ba rasaas ay soo furtay ku dhacday cid kale kama dhaawacmin cidina kuma dhiman taliyahaasina waxa uu ku dhintay keligii baa dhintay hadda eega imika waxay yidhaahdeen beentu yani beentu inaanay meel fog gaadhin gaari baa la dhacay 8 qof mid uun baa dhintay 9 qof bay ahaayeen 9kii qof 8 baa isku reera midna waa reer kale marka ninkii reerka kaliya ahaa baa dhintay oo gaarigii shilkii ku dhintay 8dii kalena nin qul xariiqi ma gaadhin waa mid subxaanallah weeye waxaan samaanta u sheegayaa Somaliland iyo xukuumadda Muuse Bixiba in arrinka haddii aanay xukuumaddu si yani xaqa aanay uga falcelinin oo aanay taliyaha wixii dilay aanay soo taagin barka oo aan lagu toogan in ceebi ka soo socoto gobolka saaxil in badan baa gobolka saaxil la dhowray gobonimo laga raacay la yidhi waa tole iska daaya wax walba way sameeyeen wax walba way yani dowladdan iyo dowladdii horeba aad bay yani ugu kibreen marka runta laga wada hadlo ninkaas wuu soo qabsami waayey Cabdicasiis yaa kale oo wax wara ka haya taliyahaas dilka taliyahaas yaa wax wara ka haya ilaahay ha u naxariistee wax wara yaa ka haya xukuumadda yaa warkeeda haya sidaa laynoo sheegay anigu waxaan maqlay galabta waxaa soo gaadhay taliya ku-xigeenkii ciidamada qaranka Somaliland ayaa berbera soo gaadhay oo laga soo diray Hargeysa ka la soo diray laftigiisu waa fooxlena waaba fooxlo oo isaga laftigiisa shilalkan iyo ka dambeeya geeriyahan ugaarsiga la ugaarsanayo taliyayaasha xukuumaddu maxay ka damacsan tahay arrinkaas maxay ka qabatay 2 nin bay soo xidheen shalayna nin bay soo xidheen maantana nin bay soo xidheen 8 nin baa la rabaa 8dii hore ee taliya Casayr dilayna meel allaali meel ay mareen qaar baa Yurub nala jooga hadda baleega waa taliya dhan oo ciidan wata oo amniga ilaalinaya oo xoolahaaga ilaalinaya dadkaaga ilaalinaya cadowga ilaalinaya ayaad shirqool ku dishay lagumana dilin waad ku caanamaashay waxaad dabeedna u qaadatay halkii taliya Casayr lagaga harin kana lagaga harayo laakiin waxaan idin sheegayaa maanta in lagu kala baxayo haddii la is ugaarsanayo oo taliyayaasha iyo haldoorka yani la ugaarsanayo waxay noqonaysaa in xukuumaddu ay reeraha isaga dhex baxdo aan ku noqdo haddaba bal fariintii aan ku noqdo waxaan kaloo idin hayaa oo ay idin dhegeysiin doonaa haddii codkaas si wanaagsan u maqlaysaan fariintii u dambeysay ee laga soo diray berbera iyo Sheekh ayaan iyadana halkan ku hayaa iyo sidii uu sarkaalkaasi u dhintay ama sidii loo dilay taliyahaas Jamaal baa weli soo taagtay gacanta leef baan ku jira dababa hortu isku leef baan ku jira qeylne
bal wasabka tus baa baan ku soo diray bal halkan fariintii baa ku duuban oo bal haddaad dhegeysan karaysaan aan dhegeysanaynaa taabo شمال وانك سوق قبطي لكن سيدي ما قبسو ميسد شمال بك كده قمت أقول والله أنا صدق أوكي أن فرينتي ويسو بيحي ويدقر على هذا لكن سقف كله قف كلام كحرية 1 minute بابا 1 minute قف كلام كحرية الله هذا عبد الرحمن عصر باتري وحنو مالينيا تيم مصبيح بكو فشل من الهواتاس ان وحفر بدن بينو دوبلوبني وحفر بدن بينو ان جعلاني in Somaliland taagnaato laakiin Somaliland reer bay ka digilaadahay imika maalmihii u dambeeyay wax ka socda halka waa aragtaan xukuumadda Musabbixi ay wadaan wada aragtaan waxa aragtaan in reera la target gareynaya reero ayaa la target gareynaya waxba la diiwaan gelinayaa baa la oranayaa dabeedna diiwaan gelinta la soo saaray reera gaar u bay target gareynaysaa xukuumaddii haysatay maaliyadda isaga dambeysay dhowrka wasiira maaliyadda ah qorsheynta qaranka dhaqaalaha arrimaha dibadda laba diiwaan gelinayo waxa la diiwaan gelinayaa reero gaara iyo dad gaara taasna waynu ka wada hadli doonaa dhilla garacatay waxaa la yidhi dhilla garacatay wasmooyin horo fara badan ayay ku nabad gashay laakiinse waxaan taragaraynayaa inaan idinku xulo berbera cabdirasaaq guddoomiye soo dhawow maanta halkan warar badan baanu ku haynaa marba de wixii kolley cusub uunbaa xiisa leh maanta waxaa xiisa leh taliyayaashan lagu laynayo berbera horta yaa ka dambeeya maanta loo kala tegi maayo number kalena waan idiin soo qorayaa oo ay igala soo hadli kartaan asxaab kalena waan sugaynaa hadday ii suurto gasho kolley khatwa waa iska yar daciif baan maranaya maanta soo taago qofkii doonayo gacanta waa lagu soo qabanayaa hanadii waan ku salaamayna adeero soo dhawow mawlid cabdi yaasiin soo qabso guddoomiye qofkii doonayo soo taago gacanta guddoomiye waan ku salaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورن waad maqlaysaa soo maaha aad baan kuu maqlayaa ka war caafimaadka wallaahi waa wanaagsan haddaa shaqo ka soo baxayo dee guddoomiye waa sidee maanta xaalku maanta ma deganay waa ku sida jawigu soo isma saarna markaa shaqada ka soo baxay horta maalmahanba waxaa jirtay nin taliya ah oo berbere lagu dilay baa jiray ninkaasi wuxuu ku jiraa tallaagadu ku jiraa maalinta saddexaad waxaa la yidhi niman baa shirqoolay oo abdaal degmada abdaal buu ka ahaa taliyaha saldhigga niman ciise muuse baa afduubay dabadeedna faas baa madaxa lagaga dhuftay markii nabarka lagu dhuftay ayaa dee si wanaagsan kolley mindiyana calooshay kaga yaallaan lugahana nabarraa kaga yaallaan marka waxay soo geliyeen suuqa gaadhaa la dhacay bay soo geliyeen suuqa dhakhaatiirtii iyo c i d dii waxay caddeeyeen inaan gaadhi la dhicin ninkane la dilay xukuumaddii aynu lahayn ee qaranku ilaa iyo hadda tacsi mooyaane kamay hadlin arrinkaas odayaashii iyo jifidii
ninku ka dhashay oo berberana dega oo gobolka saaxilna dega burcana dega waxay joogaan maanta berbera waxay taagan yihiin taliyahan wixii dilay hala keeno wasiirka arrimaha guduhuna wuu soo hadlo wuxuu yidhi taliyahaas gaalaa la dhacay hala aaso iyana waa diideen iminka 2 nin baa lasoo qabtay ninna shalay baa lasoo qabtay ninna maanta lasoo qabtay xukuumadduna waa xukuumad tahay marka falalka noocaasa ay si hagar la'aana uga jawaabto ciidamaduna waa kuwa aynu guddoomiye ku fadhino ee ku nool lahaye aynu yani ku hurudno صح waxaa markaa iminka kacsan kolley jifidaasaa kacsan weliba jifidaa uu ka soo jeedo waxaanay doonayaan in taliyahan wixii dilay sidan u dilay foosha xun leh in arrinkooda meel la saaro maxaad guddoomiye adigu maxaad ku kordhinaysaa taliyahaas waa la dilo si fool xun baa loo dilay taliyo horena waa lagu dilay meeshoo korneel casayr sanadkii horea lagu dilay iyadoo siilaanya haysto raggii dilayna qaar baaba yurub jooga 9 nin bay ahaayeen markii hore qaar baa la xidhxidhay wixii ka dhacay inaad maqashay kale mooyaane dagaal baa lagu soo qabqabtay way dagaalameen weliba maanta waxaa la doonayaa xukuumaddaasi aan kaa dhex galo wax badan ayaa mataqaanaa inoo yaallo oo mataqaanaa shaqo ah hawlahaasina waad ogtahood cid adiga kaaga madaxweynaaya ma jirto marka arrimahaasi waa arrimo la dhammaynayo si qurux badan loo dhammaynayo waxaad ogtahay gacan shisheeye ay nagula jirta faraha dadkan waa dad wada sixran oo mataqaanaa balaaya nagu wareegaysa marka anigii horeba kugu sheegay kulahaa dadkan waxay u baahan in loo duceeyo mataqaanaa sheekhi laga ducaysto marka waxaa jira dilal ka madax bannaan oo aniga kuu sheegay kulahaa amnigu waa inuu xoog waa inuu shaqeeyaa marka waxa la doonaya in la iska hor keeno in dadka waddanku mataqaanaa dad cadowga ku dhex jira dadkaasaa markaa dadka yacni mataqaanaa dhibaato u geysanaya oo markaa aan mataqaanaa ogolayn inaynu horumar sameynayno wax keenno marka yacni mataqaanaa degdeguna yacni shaydaan buu leeyahay qof waliban saacadda ilaahay ugu qoray ugu wax gaadhayaan innaguna caado uma lihin inaynu isgaadno haddaynu nahay dadka jamhuuriyadda somaliland degan iyo jamhuuriyadda jabuutiba dhaqankeena maaha laakiin dhaqamo kale dad baa inagu dhex jira insha allahu tacaala dadkaasna gacan baa lagu qaban doonaa aniguna waan u dhuun daloolaa insha allahu wax badan oo hori hoos kuwan idinku dhigaa marka waxaan ku leeyahay mataqaanaa salfudeedku xaawil jannadii ka saaray baa la yidhi ha ka sugin anigu dadka aan ka soo jeedo ee oon jabuuti reer somaliland anigu ma malaynayo qof ka dhashay baa intuu sameeyo inuu qof dhabarjabin ku samaynayo waxaas wax inoo cuntoo ma aha sixirna ma naqaano quruna ma naqaano laakiin haddii aanaydu indhaha furin oo aanaydu soo jeedsanin dhammaantiin oo dhan baa laydin wada waayi doonaa anigu mar walba taasaan idinkala hadlaa amniga waa in la adkeeyaa waa in yacni mataqaanaa aydu u fiirsataan waxaan idinku dhex jira muxuu yahay waad ka soo jeedaayo yaasiino dadkan waad ka soo jeedaa waad ka dhalatay waad mataqaanaa waanad yaan ka guursay waanad ka dhashay waxaynu shaqo ku leenahay ama isir aynu leenahay maaha in qof la gaadiyo in qof la dakriyo waxay nagu socoto nabaro hoose waana loo dhanyahay arrintan waanad og tahay marka cid kaaga xoogaalsanin ma jirto marka inaynu gacmaha isqabsanno aynu u fiirsanno oo aynu eegno waxay meesha naga imanayaan dan weyn yacni mataqaa inaga ku jirtaa daraad qarax baad weydin laynaga geystay dadka garow degana fidnaday ka dhex wadaan ummadda soomaalida waad garanaysaa marka inta aanaynu degdegin aynu u fiirsana meeshay wax nagaga socdaan maaha yacni inaga gudaheena lagama yaabo yaasiinoo maanta aniga mawlid ahaan iyo adiga yaasiin ahaana marnaba igama sugaysin inaan ku gaado wax kastoo inaan dhex maraba ama aan dhiiggaaga daadiyo dhaqan iyo isir taa uma lihin mana iga suurtoodo nin yacni dhiiggeenii iyo isir iyo dhasha awlaadda sheekh markaynu nahay ama dadka somaliland degaba inagama suurtoodo inaynu qof kale oo sheekhu dhalay aynu ciyaar ku gaadno marka anigu ma aaminsani waxaan socdo waa wax laakiin gacmo shisheeye ku jira waxa la doonaya in qallaasa laynu adiguna waad fahansantay wax badan marka waxaan ku leeyahay guddoomiya ha degdegin hadalla yuuna inaga tegin dadkuna waa wada walaalo oo waa wada ehelo waa isku inagi weeyaan marka lanjero waa kusoo qabanaya sugaad guddoomiyaha dhamaysto kubadda meesha laynagala ciyaarayo mataqaana aynu fahanno
cidi kaama xogogaalsana cidi kaama madaxweynaysana cidi kaama wasiirsana cidi kaama yani mataqaana wax walba kaagama horeyso marka yaasiino waad ogtahay bal aynu hoos yaro dhigno insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigay ilaahay baa mataqaana subxaanad ummadda samirta waxay jiraa cakaaru iska iman doonaa laakiin yaan mataqaanaa dhalinyarada iyo bulshada iyo waxan yaan la kiikinin waa aniga sidaan ley waana sidaad adigu marba nagula tirin jirtay insha allahu tacaala laakiin cadowga iyo gacmaha shisheeye aynu ka fiirsano ee nagu dhex jira waqti xasaasiyaynu ku jirnaa dhan walba waa laynoo soo maraya innaga laftigeenu ynu saxnayn u baahannahay wallahi saxnayn u baahannahay ya inagu Enough, Baba. It's coming now. Yeah. Hey, Grandpa Pig, we can You can see go you back, from you Windy can go back. Castle. Wave at us. You come. Granny and Grandpa. You was good to be. Meel baa soo dhex galaya. yaasin Kaadkayga dhacayay. yaasin aad baan ku dhageysanaya hadalkaagii laakiin ilama maynu soo wada hadlin oo waxba kamaynu wada gudoomin arrintan laakiin maadaama tahay gudoomiyihii dhammaan jamhuuriyadda somaliland qurba joogta iyo dhan walba waad ahayd maanta hadalladan soo baxaya iyo hadalkan hadda kaa soo baxaya ayaysan ku qaadin marka insha allahu tacaala bal aynu kubadda dhulka aynu u dhigno waanigi wixii xalay ka hadlayay habeenadan ka hadlayay oo dhan bay haayeen wax hadda mataqaanaa dhacaya marka haddii aanay isbar qaban adiga bartaada lagugu imanaya aniga barteeda laygu imanaya marka aynu ogaano waxa meeshan waxay ka socdaan inagu qofka face to face xaqiiq raadis baynu nahay xukuumaddana toosin baynu ku leenahay dhaliilaheeda inaynu sheegnaynu nahay way toosaysaa wasiirka arrimaha gudaha waanu cambaaraynaynaa waxaan u soo jeedinaynaa baaq weliba baaq baan u soo jeedinaynaa inuu arrimahaas taliyaha uu faraha kala baxo marba inuu telefoon soo dirayo taliyaha la aaso maaha telefoonna waa loogu sheegayaa maxamed kaahin halka faraha bulshadana waa loo marinaya yaasiinow dadkan inala joogaa waa cadceed casar joogta weeyaan oo waqtigoodii baa mataqaanaa iyo cimrigoodiiba waad ogtay waa iska gabagaba buu joogaa cimri tagayna ceeb laguma sabootiyo uma malaynayo inan kaahin iyo inan biixi iyo mataqaanaa ciise iyo dhammaantood inta yar aynoo hadhay midnaynu marka ugu dambaysa inayna sabaaxadaynayla maaha markaa bal aynu u fiirsano halkay salaadu ka xirmi laadahay niyo waxyaabo badan baa jira oo mataqaanaa in afka la soo marin karo laynagu farayaraysto waddanka gudihiisa markaa bal aynu isdabiibno aynu isbaan aynu bal insha allah anigu saan anigu leeyahay waxaan waad baadsantahay waanu qaadanay guddoomiye laakiinse xaqiiq raadis baanu ku jirnaa wax in intaa leeg oo somaliland xaqdarraa ma ogol mana yeelayno waan ku salaamayaa in adeer bal ninkaasaan soo qabanayaa okay yaasiin mid baan kaa codsanayaa guddoomiye insha allah intii hore tegay cadhadii kuleelkii kaa noqoto shaydaanka aynu iska naarno insha allahu bal mar dhow mataqaanaa si khaas waynu usoo wada hadlaynaa arrimo xasaasiya fara badan baan ku hayaa haddii ilaahay ka dhigo laakiin xaggaa bal insha allahu bal waxaan kaa codsanayaa biliis inaan mataqaanaa hadal dambe oo kul yani mataqaanaa aanu idinka tegin ummadan wada nahayn ummada xanuunsanaysaynu haynaaye bal insha allahu tacaala halkaa ku jar oo insha allah bal mar dhow anaa waad mahadsan tahay guddoomiye mawliid insha allah wanaaggaanu jecel lahay wanaaggaanu raadinaa wanaaggaanu la dhalanay laakiinse kolle xaqdarro intaa ka badan ma qaadi karno qof haddii la dilo sharciga islaamkaa dhigaya in la dilo qaar horoo la dilay oo taliyayaala oo aan shimbir loo dilin baa jirta kanse sida aan dareensanahay ama dowladdaas si wanaagsan ka yeeli doonta oo wixii dilay u dili doonta ama jifiduu ka dhashay baa u dili doonta waana wax la hubo haddii ilaahay qadaro yaasiino saacada akhrisamana baynu ku jirnaa oo mataqaanaa waxa la yidhi ummadda nebi maxamed ummaddeedu gacanteeda iska soo xaranaysaa baa la yidhi oo waqtigii baynu joognaa marka kollayba gacanaysa dafi mayso ilmo bini aadan gabagabada waxay isku soo xaranayaan ilmo nebi waa gacantooda un wey sidii la sheegay qolo walba waxbaa lagu haligi jiray qoomucaad dabayl qoomi saluud qaylo qoom walba laakiin qoomkan inagu aanu ka mid ka nahay waa gacantooda isku soo xaranayaan baa la yidhi marka waa ummad aan yani wax marka dagaal iyo dhibaatooyin baa laga qof waliba balaawin buu ka sheekaynayaa meel kastaad eegto life hadal b b c balaawin baa laga sheekaynaya
marka marxaladda aynu ku jirno ayaa mataqaanaa ka weyn kamana filaayo adigu inaad aniga yeeli karto oo aad yani mataqaanaa dhibaataynayso anuma saasoo kale yani inaan toos ugu nimaadno waa dhaqankeena wey laakiin inaynu isgaadno oo aynu halbowlaheena googoyno lagama yaabo marka gacan shisheeynu wallahi inaanan aaminsanayn nin reer isxaaq ka mida ama somaliland ka soo jeeda ayaa qof yani mataqaanaa dee dhaqankeena maaha marka insha allahu yeelna inaga ka faa'iidaysanin dad kale aynagu dhex jira ciidamo badan waanigii xalay waxaan kaga hadleebahay lifeka marka waa inaynu dowladda la shaqaynaa waa inaguna aynu mataqaanaa waddankeena dalkeena u soo laabanaa saynu camaasiirtan iskaga saari lahayn hala isdabiibo oo hala ducaysto mataqaanaa insha allahu sida caadaynu ahayd dee neefi geeliyo ducadii baa meesha ka maqane marka insha allah waxaan kaa codsanayaa bal ilaa adigu inaad magarasa shaani siiso oo shaydaan baa degdege bal hadalla iyo waxba yaanu kaa tegin maadaama tahay nin mas-uulo oo mataqaanaa oo aad ka wax weyn iga togi maayaan waa dhaliil iyo toosin bal marka waadba ku salaamaya insha allah caawar waan soo wada hadlaynaa arrinkan aan kala tuuraya maanta okay aniga ku hayo war fara badan laakiin halkan hadda inoogu joojiyo insha allah libaaxiina uu ku dhageysanaya waan soo wada hadlaynaa walaalo waan soo wada hadlaynaa insha allah bal xaggii qolkeena yaraan isku nimaadna insha allah insha allah waayo waa maasanta waa haye gudub لانشير بقعد سو تاغو لانشير يا هيا ان way wanaagsan tahay in jamhuuriyadda barakaysan la wada ilaashado waxa kaloo wanaagsan in xukuumaddu ay cadaaladda dadka deegaanka Somaliland degan inay cadaalad ugu shaqayso waxaa isniintii si foolxu loogu dilay magaalada Abdaal ee degmada Sheekh taliyihii saldhigga booliska oo ka soo jeeda reerka la yiraahdo Habar Jeclo waxa ilaa iyo hadda xukuumaddu wax tallaabo ay ka qaaday ma jiraan laba nin baa la soo xiray maanta iyo shalay 8 nin baa shirqooloo dilay meydkii marxuumku weli talaagadu ku jiraa jifidii marxuumku ka dhashay waxay diyaar u yihiin in aanay aasin ilaa wixii marxuumkaa dilay ilaa la helo marxuumka la dilay hadda shacab maaha waa taliye ciidan waa taliyihii saldhigga booliska waa taliyihii amniga magaalada gobolka saaxil ka mid ah waa mujaahidiintii u soo dagaalantay dalkan ayuu ka mid ahaa cabdalle cabdi dhimbil ninkii garanaya mujaahid buu ahaa wuxuu in badan ka shaqaynayay berbera gobolkaasoo dee uu dhashay gobolkaas saaxil maantana meydkiisii 3 casho ayay xukuumaddu ku daawanaysaa magaalada berbera xukuumaddu haddii aanay askarigeeda iyo ciidankeeda u hiilin karaynin oo ay qabiil ku shaqaynayso waa dhibaato wax yani laga naxo weeye haddii xukuumaddu ay xukuumad rasmiya tahay waa in askariga ay xuquuqdiisa ilaalisaa kornaylaa iska dhimanaya taliyayaal baa iska dhimanaya laga daba tegi maayo dadkii ay ka tageen iyo agoontii ay ka tageen xuquuq ma laha yani dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira yani xaqii ciidamada qaar waaba yaaceeno magaalooyin kaley galeen iyo dalal kale haddii aad aragto meel askartii ama ciidamadii cabanayaanna kolley waxuun baa ka jira laakiinse anigu waxaan qabaa halkii caarre maray mari mayno annagu mari mayno halkii caarre maray puntlandna tegi mayno laakiin aan gudahaanu ku jiraynaa wixii waxna yeela waanu iska difaacaynaa waanu iska celinaynaa xukuumaddu in ay Somaliland iyadu ay kala wado oo hadday hogaamin tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday shaqasiin tahay iyo hadday ciidan tahay iyo haddii ay tahay nabadgelyadaba inay dhexdhexaad ka ciyaarto kubadda ayaa wanaagsan laakiinse shalaytana korneyl baa la dilay korneyl casayr oo nin qaaliya ahaa oo gobolka Sanaaga u dhashay Habar Jeclo ka soo jeeday
waxaa dilay ciise muuse dilay 9 nin bay ku dileen iyagoo taliyihii saldhigga berbere inuu yahay garanaya way u bareereen sidee bay ugu bareeri karaan 9 nin waa kow isagoo ciidanka booliska ah oo taliye ah sidee ugu bareeri karaan waa labo isagoo oo reerka uu ka soo jeedo ay garanayaan habar jeclayay sidee ugu bareeri karaan way dhacdo gobonnimo laga iyadoo aan madaxtooyadii iyo madaxweynihii iyo guurtidiiba fadhiyo ayaan sharafta laga raaco markaasaa la yidhi aan lala dhigdhigin iyadoo sidaa tahay in maanta taliyihii labaad gobolka saaxil lagu dilo iyadoo kii horeba qoyan yahay ma suurtagal baa waxaan leeyahay habar jeclo waxa haysta dhibaato weyn baa haysata dhiig la-aan baa jirta reerkani reeraha laga yaabo ee ugu khatarsan buu ahaan jiray somalilan nimanka ka dhashay waa garanaysaan haddii laakiinse maanta ilaahay saa ka dhigay waaba dhibaato xukuumaddii cusbayd ee ay hiil iyo hooba la berber taagnaayeen ee ay habeen iyo maalinba u soo jeedeen ee ay cod waxay hayeen iyo adduun waxay hayeen baa ugu shubeen waxay ugu abaalgudday in taliyayaashooda la laayo waa kow in madaxweynahoodii sharafta iyo karaamada badnaa ee somalilan halkaas soo gaadhsiiyey in maanta burush xaarle la marmariyo la yidhahdo waa dambiile maxkamadda la soo taago waa labo oo weliba salaadiintoodu ay ku hadlaan in siyaasiyiintoodii burush xaarle la marmariyo la yidhahdo waa tuugo waxbay dhaceen waa saddex in la yidhahdo diiwaangelin baa jirta guryaha mas-uuliyiintii habar jeclaha la diiwaangeliyo waa afar in dhulkii habar jeclo ku lahayd berbere iyo hargeysaba la yidhaahdo waa la boobayo dib loo hakiyo oo madaxweynuhu yidhahdo waan hakinaya waa 5 intaasba habar jeclo way daawanaysaa guddoomiyihii xisbigii kulmiye ee ay xaqa u lahaayeen ayaa si caddaana looga qaaday oo aan ilaa iyo hadda muuse aanu ka degin markii siilaanyo haystayna uu shaanid qarxinayo rasaasta ridayey oo uu lahaa guddoomiyaha lagu soo wareejiyey doorashada ha la qabto oo uu sida yacni sidii nin dhimanayo oo kale uu saa ugu gariirayey maantana wixii baa inu isku haystaa buu doonayaa annagu haddaanu habar jeclanahay 4 wasiir ee iska magacuyaalka ah 4 wasiir ee uu meesha dhigtay 4 wasiir oo habar jeclo doonayso ku qanacsan tahay maaha waa kow markii siilaanya haystay xisaab baa taalle markii siilaanya haystay wixii habar walintii haysatay waa loogaa meel walba yadaa haysatay meel walbo dakhli joogayadaa fadhiday meex walba waa loo qabtay maanta markii kursigii lagu fadhiisiiyey wuxuu yidhi qaarna ha la xidhxidho qaarna ha la laayo qaarna dhulka ha laga qaado dhul buu hakiyey weyn oo berbere ku yaalla dhulkaa uu hakiyey waxaale habar jeclaale horena anigu mucaarad baan ugu ahaa muuse mucaaradnimadaydan caddaysanaya horena muuse walba mucaarad baan ugu ahaa waan ka soo horjeeday inuu askari dictator yahay oo qabiilaysta ah maantana waan ogahay reerka keliya wallaahi garxajisku waa iska qaylinayaane oo garxajisku waa iska hadlayaane wallaahi reerka keliya u taargad garaynaya waa habar jeclo reerka keliya aan waxba iskaga taraynin waa habar jeclo garxajis wuxuun bay samaynayaan ama dibadda ha u baxaan ama ha mudaharaadaan laakiin reerka aad moodo in somalilan ay dadka ka xigaan somalilanba waxaad moodaa inay dadka ka xigaan iyagu waaba ku qabsanayaan dad somalilanba ka hadasho annagu taliyahaas maanta tallaagada ku jira ka samri mayno haddii xukuumaddu ay ka falcelin weydo wiig baa la sugayaa iminka 3 cishaa tegey wiig baa loo qabtay wiiggaa haddii xukuumaddu ay xaqa dilaacin weydo oo nimankaa shirqoolay taliyaha saldhigga haystay ee amnigooda ilaalinayay xoolahooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda ilaalinayay ay maanta keeni weydo maxkamadoo ay xukumi weydo oo lala aasi waayo waxyaabo fara badan baa xukuumaddu god bay kusii dhacaysaa nacamtu billaahi god bay kusii dhacaysaa ninkaa odaygaa baa soo qabanayaa bal aynu eegno isagana jaalle khaalid may maqlaysaa anigu garan maayo muuse biixi niyow ma aqoon baan u lahayn maamulka waa nin adag baa la odhan jiray waa nin wax fahmayaa la odhan jiray
waxaa la odhan jiray waa nin yacni dadka isku wadi kara wixii aad sheegayseen meeday sawkaa dadkiiba kala daadiyey anigu maanta waxba la hadhi maayo ummadaydaaba kacsan sida kale qaalidow iskabarda sida kale ugrog waad fororta sida kale sida waryaasi salaamu calaykum calaykum assalaam aad iyo aad baan kuu salaamaya yaasinow waanu kaa qaadnay horta si waxmad wuxuu wadaa waan gartay soo horta barnaamijka lamaad socon yow inkastoo meel shaqa aan joogay laakiin yar baan ka soo gaaray taliyayaashii baa la ugaadhsanayaa oo lagu laynayaa gobolkii saaxil meeshu gobaygii ina nuur fadal bay maraysaa waa gartay ciyaari ma taallo waa gartay dadkuna waa wada caaro muuqdiyo caaro qarsoon waa gartay meesha uu tun raagtay iyo arabi baa aasan waa gartay dembigii uu muuse shaani galay ayaa kolba ina qarxaysaa waa gartay dadka wacyigelinta kuwa mujaahid baa tahay halgamaa baa tahay aad iyo aad baan kuu salaamaya anigu meel shaqaan waad ogeydo mujaahid waad ogeydo anigu xisbiga wadani baan ahaa mucaarad baan ku ahaa markii horeba doorashadiisiiba waan ku ogaa inaad tahay mujaahid weyn oo digilay inaad haddana waxaan ilaalinayay qarannimada iyo wadanninimadun baan ahaa waan ku waryan maaqudu nagu qaxilo dagaalka naga daayun baan lahaa waan ku ogaa mujaahid waan ku ogaa maanta laakiin waa laga wax fara badan oo aan qarinayo aan saade qarannimada awgeed aan ku qarinayay aad iyo aad iyo soomaalinimada ayaan wiiga gandilaacinaya muuse bixina ama dadka cadaalad buu ugu talin ama uu iska casili doonaa ama shaani ha soo qaato ama faanta ha soo qaato halkaa kaga hay baan ku yidhi yaasinow aadna waan kuu salaamaya aad baan kuu salaamaya inaad soo dhowow haye mujaahid yaa soo qabtaa bal sug nin muxaafidkaa loo baahanya muxaafidka dadka muxaafidka ah nuuraddiinkaas ma somaliland ma mise soomaali weyn talow wuu kuu qabsoomi waaye dal maroo soo qabso